وجعلكي أو قفا ودعني مدي قفا وحده قان صدي إنه كليجي هيستقاضه أما إن جميل هذا بلك الزلو هيستوى جدا وكلك عصنت هاي هدنا كبرنا عسى لا الجلية هيست مركب هاي أو أبوانك يداركتك يكن لحك ساري يكن موس كذا يكن دوبا يبا لا اسكو راعينا كو قرحيسو ضيح إن جبر لو درو أو لو لمانيو يا dadka Soomaaliyeed aamin in xaajiga dayaxo kale laga dhigaa war abuur iyo waano abuur horeysay ina culay waa cirkoon soo dubay inuu dayaxo kale noqday wax kale ma janno ku ducaysato amaan mudnida warkii hore war soo dhaaf wartan oo kale waa maanta waa yaabi doontaan fanaankeenii weynaa dayaxdal nuushe wuxuu soo qaaday bahal heesa oo cajiib ah amaan mudnida baa la dhahaa heestaas hablaha Soomaaliyeed buu ku amaanaya kale iska arag heestii waa qaraxday laakiin heestii meel bay u dhutiyaysaa heestu meel bay u dhutiyaysaa meeshii baa rabaa inaan idin tilmaamo heesta waxa qorshu ahaa bacdama hablaha Soomaaliyeed lagu amaanayo in fanaanku markuu heesta qaadayo sida fanaaniinta kale bahal gabara oo xul ah oo cambar cagaweyn ah ee heesta la jisho oo saa hormarto oo cambaruudka saa ugu xoqdo oo hadba dhinaca ka jirto oo mar farta ku fiiqo oo mar gacanta qabsado qorshukaas u ahaa saasa heesta abwaanadii iyo dadkii laxanka u garaacay iyo dadkii duubayay iyo saas filinkaas soo qorsheeyay haddii xaaladdu meel fiican ay marayso heesta la bilaabi lahaa farxiyo alla macadaabadii baa waxa la yiri fiita power bay adeegsatay codka diidmada qayacan joojiye bay tiri keligii heesta ma duubay mise gabigeeda waa lagu kala dhaqaaqay saasa keligii ku duubay waxaan soo xasuustay Mareykanku hadda ka hor yiri Suuriya duqeynaya oo ruushku fiita cod fiita la dhaho qaramada midoobay golaha amaanka yaala qac u miisaska ku jajabiyay kaamirooyinka baan jabin baa la yiri arintaas rabaa odaygii heesta inuu reaction ka bixiyo oo waxa ka yiraahdo oo ninkii shira culayha oo kulana ala sida ku yaal fiidiyowga si share garay la wadaag asxaabta kale channelkayga YouTube hadda ku cusub tahay subscribe soo dheh page-kayga Facebook na follow soo dheh like tiyo commentiga bahala ku dhinta yeena ku wada hadlin dayaxdal nuushe horta odayga aaminsanahay Soomaali oo dhan baa ila qabta halkan ka salaamaya waagii hore dumarka Soomaaliyeed ilaa maalintii Soomaali la uumay ducada ugu badan ay ku ducaysan jireen wuxuu ahaa ilaahow jannadii igay ilaahow cadaabta iga xoray labadii sano ugu dameysa intii dayax la arkay ilaa dayax waa jacaylkii oo qofka waa daacadnimadii oo qofa intii dumarku ay arkeen jajabnaantiisa jacaylka muxubada wiilka ku jirta waxay ku ducaystaan ilaahow dayax oo kale isi oo hadda calaf sugtahay haday mid haysatana aan khayr qabina waxa tiraahdaa ilaahow iisoo hadeeyo dayax oo kale iga dhib ninkaas marka waa aaminsanahay halka ka salaameena hees buu soo qaaday heestiisa aniga waa iga gadan tahay shaabada ku dhiftay 100% waa hees miraha iyo laxanka ayaabayso dadkii Soomaaliyeedna waa la wada kaceen meel bayada maanta ka shidan heestaas ma sha Allah dayax waa ku soo taagtaagsaday heesta qorshaheedii qalindaar yar baa ku yimid taasaan rabaa marka inaan aan inii bahalkeeyo horta heesta aan isleeyahay waxaad ma tashaaquraysti makada marka la xural cayn la muddeehay haqiiqo malabay mashquul kugu noqoy waxaad ma tashaaquraysti makada marka la xural cayn la muddeehay haqiiqo malabay waxa matashaa qurayshti maka gabdhii qoorta dhaadheera oo barisabaadka jooga quraysh la oran jiray baa matashaa ya macaanay malabay heestu waa hees gabar lagu amaanayo heesta marka qorshuhu wuxuu ahaa inay gabar la jisho wiilka oo sida fanaaniinta kale waa aragteen tusaale ahaan kale waa u jeedaan waa mursal oo hees soo qaadaya mursal waa garanaysaa nin xaasil ah waaye waxa la soo qaaday la jilaysa oo heesta aan waxba ku lahayn laakiin uu actionki ku jilaya qofta la yiraahdo Xamdi Bilan sidaas lamida heesta waa u jeedaan waa kala kacsan tahay haddana gabadhaas la jilaya heesu saasay markay jacayl yihiin ama gabar la amaanayo
waxay ku qurux badan tahay jiliinka waxa la yiraahdo maaha labadii qof inay wax ka dhaxayaan maaha laakiin waa la jilayaa waa qurux badan tahay qof shidan baa tahay hadba waa la isku xoqoqayaa waa jiritaan meeshaasa lagu kala dhaqaaqayaa halkaasaana la isugu imanaya heesta marka waxay ahayd oo abwaanka iyo directorka iyo kan laxanka saaray iyo kan muusikada iyo kan duubayaba la isku raaca inay ku qarxayso dayax in gabar lagu daro oo lagu lamaaniyo gabadha waxa kala ma dhaxayaan magaalada muqdisho saa loo dhaxmaray gabadhii ku jirtay baa laga soo saaray amoodayso aadheeyso heestaba wiilku ma gabadha tan u tiriyay hablii qurayshta oo eg oo surku inta leeyahay oo dusheeda ka subkanayso oo gabageedo dhalaalaysa oo quruxdii oo cagale soconayso quruxdii oo gurguuranaysa baa la keenay gabadhii waxa waliba waa la soo naashnaashay tacab badan baa la soo galiyay dayax marka waxa la yiri gabadha tan heesta kula qaadaysa dayax waxyaaba uu ku fiican yahay oo aadka loogu amaano waxa kamid ah keligii ma socdo xaajiyadiisa marka maartay badana la socota ma sha Allah weey ilaahay hanaga dhigo marka hadii markii la duubi lahaa xaajiyadii isagoo ixtiraamaya oo la socotay ilaa waa jacaylkii oo qofa waa daacadnimadii oo qofa wuxuu deex go'aansaday inuu keligii heesta qaado ama in gabigeedaba la kansalo gabar ila qaadaysa aniga ma jirto biiri gabar ila qaadaysa ma jirto marka wada istijiir dheer kadib dadkii waxay go'aansadeen heesta inaan la baajin dayax keligii soo qaado heesta inta ka dhiman oo hadda sugaysaan oo isleed heesta in baa ka dhiman inta weeye inta gabar hadii la jiri lahayd sida fanaaniinta kale heestu inta waa ka micno weynaan lahayd waa ka gadman lahayd laakiin inta saatimi isaguna xaajiyadu ixtiraamayay runtiina waa ku ammaanay yahay ragga Soomaaliyeedna ninkaasi role model u yahay dumarka Soomaaliyeedna waa ku duceystaan marka heestaas aniga waa iga gadan tahay inta yaro qalindaarka aba ku dhacay yeelkadeeda saas ay ku soconaysaa sida bay ku soconaysaa dayaxna waxa weeye waligiiba isagu kaligiisa soo heesi jiray waana runtii xaqiiqdii nin isku kalsoon weeye xaqiiqdii nin isku kalsoon oo rag badan oo Soomaaliyeed oo shiina ku jiro role model waa halo ha xaajiyo dayax dan shahri action ka bixinaya heestiisi cajiibka ay soo baxday ya dadka Soomaaliyeed aamin idhaa in xaajiga dayax oo kale laga dhigaa war abuur iyo waano abuura horeysay ina culay waa cirkoon soo dubay inuu dayax oo kale noqday wax kale ma janno ku duceysato waraku waayahay waa dhahaya aaminta u soo dhaa waa dhahay waay xaajiyadii jannada muraaday aamin u soo dhaha waxa tiri in ilaahay jannadii geeyo aamin soo dhaha marka runtii aniga dayax dadka taageersanaan ku jira nin dhalinyaro ah waaye ma sha Allah xaajiyadan igu soo duceeyay in ilaahay jannadii maartay geeyo heesti marka waa gadan tahay heesta shidan waaye intaas ka dhinayd intaana odaygu xaajiyadiisu taxkiliyay waa runtii jacaylkii qof weeye gobnimadii qof weeye waa aaminsanahay shidana kuma jirto haduu gabar soo qaadi lahaa oo fanaaniinta kale iyo xaaslay ah way la soo heystaan gabdhaha qaarkood waa la qaadaa qaarkood waa la soo metelaan mishkila ma ahaateen laakiin isaga maxaa ku raada go'aansaday in lagu ixtiraamo lagu bogaadiyo lagu amaanana waa mudan yahay xaajo ku salaamaya heestaana waa kugu duceeyay shaydaankii ku qaatay kuma dhigo dab dhagax lagu dhuftay Allah kaaga dhigo ha kala qarxo tii usbuuc milyan ku daawado 2 bilood 3 milyan ku daawato Allah idinka dhigo waa ninkii shiina culaha wadle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.